waxaan rabaa in aan maanta ka hadlo hagardaamada dowladda Kenya ay ku hayso badda Soomaaliyeed iyo sheegashada ay sheeganayso dhul baaxad weyn oo ka tirsan badda Soomaaliyeed. waqtigii ay shaqaynaysay dowladdii dhexe oo Soomaaliya walwal badan lagama qabin difaaca xuduudaha dalka Soomaaliya ha ahaato bad, beri iyo hawada sare. markii ay burburtay dowladdii dhexe oo kala qaybsanaan ku timid dadkii Soomaaliyeed ayaa wadamada dariska ah oo ay awal ku maqnaayeen dhul Soomaaliyeed waxay u soo hanqal taageen in ay sheegtaan qaybo ka mid ah badda Soomaaliyeed. xariiqda muujinaysa xadka u dhaxeeya badda Kenya iyo Soomaaliya markii laga bilaabo xuduudka labada dal waxa ay u janjeertay dhanka koonfur bari. xeerarka badda oo Kenya oo soo kala baxay 1972 iyo 1989 waxa ay waafaqsanaayeen qaabka ay Soomaalidu rabtay. maadaama dowladdii Soomaaliya ay ahayd dowlad xoog leh oo difaaci kartay xuduudaha dalka Kenya marna uma soo hanqaltaagi jirin sheegashada badda Soomaaliyeed. waxa aad moodaa in mowqifkii Kenya isbedelay 2005 iyaga oo xariiqintii muujinayay xadka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya oo lagu cabiraya badda ay u leexiyeen dhanka bari iyaga oo soo galay dhul aad u fara badan oo Soomaaliya ay lahayd. isbedelka mowqifka Kenya waxaa la dhihi karaa waxa keenay markii 2 sano uu ka socday shir loo qabtay kooxaha Soomaaliya oo ku soo gabagaboobay dalka Kenya in Kenyaatigu arkeen tayada dadka sheeganayay madaxda Soomaaliya oo ay markaas u hawoodeen in ay sheegtaan badda Soomaaliya. xeerka qaramada midoobay ee badaha ayaa waxa uu dalalka xeebaha leh u ogolaanayay in ay sheegtaan 150 mayl badeed oo saa'id ka ah 200 oo mayl badeed oo ay awal lahaayeen. arrinkaas waxa ay keentay in Kenya ay dowladda Soomaaliya ka dhaadhiciso in ay la gasho heshiis ay leedahay muran ayaa waxa uu ka jira xuduudkayaga. dowladda Soomaaliyana aynan waxba ka qabin in ay Kenya gudubsato codsi ay ku kororsanayso qalfoofkeeda badda oo ay ku jirto xariiqdii ay bedeleen oo soo galaysa dhul badan oo Soomaaliya leedahay. madaxdii xilligaas Soomaaliya ka talinaysay waxa ay ku andacoodeen in waxa ay la galeen Kenya aynan ahayn heshiis ee ay ahaayeen is-afgarad. waxa kale oo ay madaxdaasu sheegeen in dad khubaro ah ay u yimaadeen oo 3 saacadood ay u sharaxeen arrinka sidaasna ay ku aqbaleen. cadaadis aad u fara badan ayaa waxa uu ka yimid dadweynaha Soomaaliyeed oo ay uga dhiidhiyeen heshiiskaas Kenya lala galay oo ay u arkeen mid xadgudub ku ah badda Soomaaliya. baarlamaankii ku meel gaarka ahaa oo waqtigaas jiray ayaa waxa uu diiday oo uu laalay heshiiskii Soomaaliya iyo Kenya ay wada galeen. markii baarlamaanku diiday ka bacdi ayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha warqad ka soo baxday waxaa loo diray qaramada midoobay oo lagu ayidayo heshiiskaas. sida muuqata warqadaas waxaa qortay dowladda Kenya laakiin waxa u saxeexay Soomaali. markii cadaadiskii shacabka ka imaanayay uu sii batay ayaa waxaa dhacday in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo xilligaas uu warqad u diray qaramada midoobay una sheegayo in aan heshiiskii isfahamka oo u dhaxeeyay Kenya iyo Soomaaliya aan lagu dhaqmi karin. qaramada midoobeyna qoraal ay soo saartay waxay ku cadeeyeen in heshiiskaasu yahay mid wax kama jiraan ah. Kenya oo ku andacoonaysay in heshiisku yahay is-afgarad iyo madaxda Soomaaliyeed oo ku hadaaqayay in waxa ay saxiixeen aynan ahayn heshiis caalami ah laakiin ay ahayd isfaham kali ah. waxaa dhacday in dowladda Kenya ay heshiiskii u gudbiso oo ay ka diiwaan geliso qaramada midoobay halkaasna uu ku noqday heshiis caalami ah. dowladda Kenya waxa ay ruqsad siisay shirkado ajnabi ah oo ay u ogolaatay in ay
ka baartaan khayraad dhulkii badeedkii Soomaaliya oo ay qaladka ku sheeganaysay. bishii 8aad 2014 ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay dacwad ka dhan ah dalka Kenya u gudbisay maxkamadda cadaaladda adduunka oo ku taala dalka Holland. dowladda Soomaaliya waxa ay weydiisatay maxkamadda in ay go'aamiso xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya iyada oo la raacayo qawaaniinta caalamiga ah. maxkamaddu waxa ay labada dal u qabatay in dal kasta soo gudubsado dacwadiisii. marka hore dalka Soomaaliya ayaa waxa loo qabtay in ay soo gudbiyaan dacwadoodii oo dhammaystiran. dalka Kenya waqtigii la rabay in ay ka soo jawaabaan dacwadda Soomaaliya ayaa waxa ay maxkamadda u gudbiyeen diidmo hordhac ah oo ay leeyihiin maxkamaddu awood uma laha in ay qaado kiiskanna ma ahayn in maxkamadda la keeno. dalka Kenya waxa uu sheegayaa in Kenya iyo Soomaaliya ay weli u socoto nidaam diblomaasiyadeed oo ayna burburin. dowladda Soomaaliya waxa ay ku salaysay dacwadeeda in wada hadalkii diblomaasiyadeed oo u dhaxeeyay Kenya iyo Soomaaliya uu burburay, sidaas darteedna ay dacwada u keeneen. waxa aad moodaa dowladda Soomaaliya in ay xagaldaacinayso doodii ay maxkamadda geysay oo ku saabsaneed wada hadalka diblomaasiyadeed. bishii 2aad 2014 warqad ay qortay dowladda Soomaaliyeed waxa ay u sheegtay guddiga xadaynta qalfoofka badda in Soomaaliya aynan raalli ka ahayn in codsiga Kenya la tixgeliyo. guddiga qaramada midoobay mar uu shirayay bishii 3aad 2014 waxa uu go'aamiyey in aynan tixgelin doonin codsiga Kenya sababta oo ah Soomaaliya ayaa diiday. waxa arrin la yaab leh ah in bishii 11aad 2015 guddigii uu cadeeyay in ay mowqifkoodii bedeleen oo ay tixgelinayaan codsiga Kenya sababtoo ah dowladda Soomaaliyeed ayaa warqad soo qortay oo ay ogolaansho u siinayso in arrinta codsiga Kenya la tixgeliyo. arrinkaas waa xagaldaaco loo geysanayo doodii Soomaaliyeed oo ahayd waxaa burburay wada hadaladii diblomaasiyadda. kulan dhex maray wasiirka arrimaha dibadda oo Kenya iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa waxa ay soo saareen qoraal la leeyahay waxaa la sameynayaa guddi iskaashi oo labada dal yeesho. shaqooyinka guddiga ayaa waxaa ka mid ahaa in laga wada hadlo xuduudka badda. golihii wasiirada oo xilligaas ayaa arrinkaas diiday, samayntii guddigaasna meesha ayuu ka baxay. bishii 4aad 2016 shir dhex maray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka Kenya ayaa waxa la sheegay in la isku afgartay in dib loo howlgeliyo guddigaas. macnaha ku jira meeshaasna waxa ay tahay haddii guddiga la howlgeliyo waxaa dowladda Soomaaliyeed ogolaatay in ay Kenya kala hadasho xadayntii badda, taas oo si cad uga hor imaanaysa doodii Soomaaliya ay u gudbisay maxkamadda cadaaladda adduunka oo ahayd waxa burburay wada hadalkii diblomaasiyadeed oo u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya. iyadoo taas laga sii amba qaadayo ayaa bishii 6aad 2016 labada wasiir arrimo dibadeed ee Soomaaliya iyo Kenya waxa ay saxiixeen heshiiskii lagu hirgelinayay guddiga iskaashiga oo shaqadiisu ay ka mid ahayd in laga wada hadlo arrimaha badda. arrinta isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay sababta dowladda Soomaaliyeed ay xagaldaacada ugu hayso doodii ay geysay maxkamadda cadaaladda adduunka. dowladda miyaa iska warqabin oo qaar u shaqeeya dowladda Kenya ayaa ku jira, mase waa siyaasad dowladda dhan u ogtahay oo la rabo in lagu xagaldaaciyo dacwada hortaala maxkamadda cadaaladda. waxaa arrin lala yaabo ah in dalka Kenya oo si qalad ah ku sheeganaya qayb ka mid ah badda Soomaaliyeed ciidankoodii ay joogaan qayb ka mid ah Soomaaliya ayna ku andacoodaan in ay caawinayaan dalka Soomaaliyeed. waa laba arrimood oo aan isqaban karin
in dalka Kenya uu dhinac ka sheegto baddii Soomaaliya oo uu rabo inuu si qalad ku qaato dhanka kalena uu sheegto in uu caawinayo dadka Soomaaliyeed sida muuqata dalka iyo dadka Soomaaliyeed cidna uma maqna ceelna uma qodna siyaasiyiinta jagooyinka ka haya qaybaha kala duwan ee dalka waxaa muuqata in aan lagu halayn karin difaaca badda iyo bariga Soomaaliyeed sidaas daraadeed shacabka Soomaaliyeed waxaa la gudboon in ay is-abaabulaan oo ay ka tashadaan sidii ay u difaaci lahaayeen badda Soomaaliyeed cadaadis u saari lahaayeen ulana xisaabtami lahaayeen siyaasiyiinta u muuqda in ay dana gaagaaban ka fakarayaan dadka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa in ay isku tanaasulaan oo ay ka fakaraan sidii ay u hirgelin lahaayeen dowlad xoog leh oo difaaci karta badda bariga iyo hawada Soomaaliyeed waad mahadsantihiin